mid ka mid ah tagsiilayaasha magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa la qabtay isaga oo tagsiga ku wado jiha aan sax ahayn. Arrintan ayaa timid xilli habeen ah kadib markii uu tagsiilahan magaalada Bergen ka shaqeeya uu gaariga ku waday wadada highway-ga ee 555 jihada ay ka imaanayeen gaadiidka kale, taa oo khalkhal gelisay gaadiid badan oo wadadaasi socday. Darawalkan ayaa la sheegay in uu jihada Bergen u soo socday kana imaanaya dhanka galbeedka ah, waxaana la soo warinayaa in ay booliiska ku qabteen bannaanka tunnelka Dammsgård ee magaalada Bergen. Darawalkan ayaa la sheegay in uu mir qabay, maskaxdiisuna ay joogtay, una fahansanaa in uu tagsiga ku wado jiha aan sax ahayn, weliba ay tahay wadda highway ah oo ay gaadiidka iyaga oo xawaaro ku socdo ka hor imaanayeen. Taliyaha howlgallada booliiska Dank Erik Johansen ayaa sheegay in darawalkani ay ku qabteen bannaanka tunnelka Dammsgård tunnel xilli ay saacadu ahayd 1:40 ee saqdhexe. Tagsiilahan ayaa halkaa lagu weydiiyey su'aalo, waxa uuna taliye Johansen sheegay in ay darawalkani maskaxdiisu taam ahayd oo uusan qabin wax dhibaato ah, uuna dareensanaa qaladka ka dhacay, balse uu galay khalkhal iyo walbahaar ku saabsan oo uu waayay qaab uu u saxo misna qaladkiisa uu qirsanaa. Arrintan ayuu taliyuhu sheegay in xilliga oo ahaa xilli saqdhexe oo 1:40 ah ay ahayd mid nasiib wanaag ah oo gaadiidka socda ay aad u yaraayeen, ha yeeshee gaadiidka ka hor imaanayay darawalkan tagsiilaha ay ahaayeen kuwo xawaaro ku socday. Waxaana la soo warinayaa oo uu taliyuhu sheegay in aysan jirin wax shil ah oo ka dhacay iyo xaalado halis ah oo sababi karay shilka. Darawalkan tagsiilaha ah ee wadada khaldan ee highway-ga cagsiga ah ku wada gaariga ayaa la soo sheegayaa in la ganaaxay ganaax fudud, sidoo kalena la siiyey digniino ah in uu ka digtoonaado in uu hadda kadib wadooyinka highway-ga ah ee dhanka cagsiga uu ugu wada gaariga. Halka ay wararka ugu darkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.